maamulaha Nil Financials Mr. Hussein Osey ayaa horay u ballan qaaday in lacagaha soo gala qaarkood ay ku celin doonaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Deeqdan oo ahayd lacag kaash ah ayaa la guddoonsiiyay qaar ka mid ah dadka dhibaataysan ee ku sugan xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ka faa'iideystay caruur agoon ah oo nolosha ay ku adkeyd oo xeryahaasi ku sugan iyo waliba sidoo kale hooyooyin helidda qootul daruuriga aad ugu dhibanaa oo intooda badan ahaa kuwa raggii qabay ay geeriyoodeen. Calaa qof waxa uu nasiib u yeeshay lacag ku dhow 300,000 oo shilin Soomaaliya, waxayna ku dhawaayeen dadka ka faa'iideystay guddoonsiinta lacagtan 70 ruux oo isugu jiray caruur agoona iyo hooyooyin dhibaataysan. waxaana lacagtan ay ka timid kambaniga Nil Financials ee sameeya qalabka hoyga ee ku yaala magaalada London, isla markaana ay leeyihiin walaalo Turkiya. qaar ka mid ah hooyooyinkii ka faa'iideystay helidda lacagaha ayaana ka mahadceliyay caruurtii qaabka lacagaha loo guddoonsiiyay, iyagoo kambanigana ku tilmaamay inuu yahay mid aad u caawiya mar walba. waa mahadsantihiin. annagoo joogno geed hoostiisa fadhino wiilashii markay wax noo keeneen oo gacnahayn wax ku rideen oo si cadaalada wax noo siiyeen waa ku mahadsan yihiin Nil. waa ku mahadsan yihiin 90% Allah u soo dhiibo ilaahay u soo sahlo ilaahay kor ha u qaado. annagana dad maxay ahayd u baahanana haddaan musqul heli karno, haddaan biyo heli karno, haddaan raashin heli karno, dad kaan joogo kaan oo dhaxantiisa ilaahay ogyahay dad joogaan nahay. wixii ay noo heli karaan oo ilaahay u soo sahlo oo noo keenaan waa ku mahad celinaa. haddana waa ku mahadsan yihiin. assalaamu calaykum. awlaadda meesha noo joogan waa mahadsantiin. ilaahay madaxiin kor Allah ka dhigo, gacantiin ma gurto ma gaagaxdo. sidii unu noo yeelaysinka darankiis ilaahay alaanii yeelo, sidii noo jaradaysan ilaahay alaanii jaradeeyo, jaladii caadal alaanii siiyo. waa mahadsantiin. wabarakaatu. waxaan ka soo qaxnay shabeellada hoose, qaalahaan bariire iyo owdheegle. intaasoo mataqaanaa sanaan joogna meeshaan waxna la siiyana ma jiraan. waxaan u mahad celihaynaa oo ugu mahad celihaynaa qayrkaana la siiyay, dadkii soo siiyay iyo dadkii noo soo qaaday iyo midkii aan meeshiisa ku helnay intaba. intaasaan mahad u celinaynaa. Allah awoodiisa iskalena mahadaan u celinaynaa. mataqaanaa qayr Allah idin siiyo, naftiina iyo waalidkiina naarta Allah ka xoreeyo. intii noo soo dhiibtay iyo intii noo soo qaaday intaba annaguna saasaan nahay, baahanayaalaan nahay meeshan wada joogo oo waxay haystaan la arag. saasaan mataqaanaa qayr idinku rajeeyahay haddii Allah awood la idin aynayna nimankaana unugu wax ogaanayno oo adoon ah oo naga dhibkayna kaseen oo waxna siiyeen in ilaahay baraka saar. dabkii socdo ilaahu badi imadi ilaahay meeshaas Allah ka damay dhibkii doomali haay ilaahayow ka qaad, ilaahayow dheerta badi, ilaahu iimaanka sugo. horjoogaha kaamka ayaa sidoo kale ka hadashay deeqdani maanta la soo gaarsiiyay, iyadoo sheegtay inay tahay mid ay uga mahad celinayaan Nil Financials. Allah uu dalay waxaan ku xijeenaa islaamka Nabi Maxamed ee wax noo soo dhiibay, maadaama sadaqaas noo soo dhiibay ay soo gaartay santarka New Center degmada garas baaleyna ay noo keentay nimanka noo keena iyo nimanka noo soo hormariyay qanti noo soo dhiibta ajri xasanaad Allah ka siiyo. kaankan u jeedo ay baaxad weyn warigiis wax islaamka Nabi Maxamed soo gala xataa lama arko, wax ku hoydo moogay wax sadaqa u keena lama arag, wax maanta oo koorgan siiyay lama arag. intaasaan idinka mahad celinaa ilaahan u mahad celinaa insha Allah hadii ilaahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka garas baaley oo kamid ahaa goobihii maanta deeqda la gaarsiiyay ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyay deeqdan lacagta ah ee ka timid Nil Financials, isagoo ku tilmaamay inay tahay mid loo baahnaa. haddana mar labaad waxaan u mahad celinaynaa walaalaha muslimiinta ah ee Nil iyo dadka masaakiinta oo aad iyo aad u tabaalaysan ku soo tabarucay maanta min 250,000 oo shilin Soomaali ah. kuwaas ayaan u mahad celinaynaa walaalaha iyagana. waxaan leenahay walaalayaal Soomaalidu ha ku daydeen sida walaalaha kale ee maanta walaalihiin ay wax siiyeen. walaalayaal waxaan leenahay inta Ilaahay wax siiyay dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay maalka siiyay inay dadka walaalihiina oo tabaalaysan oo soo barakacay oo xooloodii ka soo dhamaadeen walaalayaal dadka hal caawiyaan leenahay sida walaalihiina kale ay u caawiyeen. walaalayaal u caawiya ku dayda walaalaha maanta kuwa maanta dhabarkayga taagan waxa la siiyay ku dayda. waxaan leenahay marka hal lagu daydo waa bilow fiican weeye. annaguna waxaan u mahad celinaa maamul ahaan deegaanka garas baaley haddaan nahay aad iyo aadan ugu mahad celinaa walaalaha maanta kaalmaha soo dhiibay.
kambaniga Nill'S Furnitures oo kamid ah kambaniyada ay leeyihiin walaalaha Turkiga isla markaana sameeya alaabaha hoyga guriga sida jiifka iyo wixii la mid ah ayaa waxa uu kamid yahay kuwa caawiya dadka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan waxaana maamulaha Masar Xuseen Oosay uu horay u sheegay in mar walba ay garab taagnaan doonaan dadka Soomaaliyeed ee garabka uga baahan waxaana horay deeq u gaarsiiyay dadkii qaraxyada ku waxyeeloobay iyo kuwa dhimirka la ay ku jira cisbitaalada dhimirka magaalada Muqdisho.